gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Sheekh Ismaan Ciye ayaa maanta hay'adda Save Children kala wareegay deeq kombiyuutar oo ay ka keentay mashruuca horumarinta cilmiga qaybtiisii saddexaad. kulankani ayaa waxaa goobjoog ah maamulaha dugsiga sare Shaali Jawhar ee magaalada Boorama iyo waliba xubin ka socday isagu hay'adda Save Children. kombiyuutaradani ayaa waxaa lagu biirin doonaa qaybta library-ga dugsiga sare Shaali Jawhar ee magaalada Boorama kaasi oo wax weyn ka tari doona qaybta IT-ga ee dugsigaasi. ugu horeyn hadaba halkaasi waxaa ka hadlay maamulaha dugsiga sare Shaali Jawhar ee magaalada Boorama mudane Maxamed Ali Xuseen waxaanu wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda Save Children uga mahadnaqay deeqdani kombiyuutarada ee lagu kabi doono library-ga dugsiga sare Shaali Jawhar wax weyn ka tari doona tayada aqooneed ee dugsigaasi. inoo ku sugan maanta goobtana dugsiga sare Sheekh Ali Jawhar waxaan maanta halkan ka gudoomeynaa ama kula wareegeynaa agabka laabka ma laab kombiyuutarka kaasoo aadan ugu baahnayn aanan ka dalbanay Save Children oo aan dhexmarinay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal dalabkaas oo degdeg ah inagu soo jawaabeen si dhagan nugul si dhaqso leh oo muddo kooban inagu soo jawaabeen markoowaad iyo mar labaad baad baan ugu mahad celinaynaa. qalabkaasi wuxuu ka kooban yahay waa 13 kombiyuutar iyo oo kii ahaa only in one macnaheedu taqaanay isku xidhnaa iyo power regulator koogii oo dhameystiran. marka qalabkaas maanta kala gudoomeynaa hay'adda Save Children kaasi oo ah mashruuca horumarinta cilmiga wajiga saddexaad ma phase 3 aad iyo aad baan ugu baahnaan qalabkaasi sida dhagaha nugu leh ma taqaanay wanaagsan nooga soo jawaabeen dalabkayagii qalabkaasi oo si fiican uga faa'iideysan doono oo aadna aan ugu baahnayn ardaydna u baahnayd dugsiguna u baahnaa. marka waxaan leenahay markoowaad iyo mar labaadba aad iyo aad baad mahadsantihiin. geestiisa waxaa faahfaahin dheeriya ka bixiyay deeqdani hay'adda Save Children ay soo gaarsiisay dugsiga sare Shaali Jawhar ee magaalada Boorama gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Sheekh Ismaan Ciye waxaanu halkaasi ka sheegay kullay meesha aynu maanta joognaa waa dugsiga sare Shaali Jawhar waxaan ilaahay uga mahad celinayaa inaanu maanta ku wareejinayno agabkan oo ah lab kombiyuutarkii oo hore u lahaa dugsigu lab kombiyuutar laakiin tirada taalay ayaa aad ugu yarayd. waxay maanta tan noqonaysaa deeqdan loo keenay inay kabto kuna filaato markaasi inaan ardadii sababtoo ah iminka waqtiga aynu joogno adduunyada waxa weeyaan wax loo gudbiyaa xagga waa tiknoolajiyada tan waxay ka qayb qaadan doontaa agabkan maanta loo keenay inay tayadii waxbarashada dugsiga kor u qaado gaar ahaan qaybtii markaasi IT-da. waxa halkan maanta la gudoonsiinayaan inaan hay'adda Save Children oo ka keentay wada mashruuca markaa horumarinta qaybtii saddexaad phase 3 oo lacagta ama deeqdana leedahay EU ama European Union waxayna gudoonsiinayaan lab kombiyuutarka oo hore uga codsanay dugsigana ay qaybo badan in badan ka dhinayd. marka halka waxa ku dhan tiro kombiyuutar ah oo wadata xataa kii ka qaban lahaa dabciliyihii oo dhameystiran. waxay tan ka qayb qaadan doontaa baahidii dugsiga taalayna wax badan ka daboosho waxay ka qayb qaadan doontaa baahidii ardaydu markaasi ay u qabtay xagga IT-da oo dhameystirnaan doonta. insha Allah waxaan aad uga mahad celinaa dhammaan qaybta waxbarashada ee Save Children oo markii aanu u sheegnay hawshan si dhaqso ah noogala qayb qaatay isagoo leh mashruuca iskuulkuna ku jirin haddana si dhagan nugul oo wanaagsan waxaanu ka codsanay soo dhameystirtay raggii ka shaqeeyay oo maanta Jibriil nagala jooga aad baan uga mahad celinayaa. kale waxaan odhan lahaa dugsigana waxa la inoo keenay inaanu ilaashano ugana faa'iideysano inay ubadkeena ujeedada dhan waxa ahayd inay ubadkeenu markaa ka faa'iideystaan. waxa kale aad ugu hambalyeynaa sanadkan dugsigu aad buu fiicnaa xagga tayada marka imtixaamaadkii la eego si guudna wasaaraddu markay soo saartay ama analysis ay ku samaysay waxa fiicnaa dugsiyada dawladda ayaa waxbarashaan sanadkan imtixaamaadka sareeyay. haddii aynu tan helno waxay noqonaysaa inay wax badan inoo hagaagayaan. waxa inoo diyaara maxay library-gi oo ama maktabadii oo akhriska kii kombiyuutarada intaaba muxuu ahaa laabkii oo dhammaan sayniska ku dhameystiran yihiin oo dugsiga kaliya resource-kii ama waxa la yiraahdo learning resource-kii ama adeegii wax lagu baran lahaa dhan u dhameystiran tahay ama ahaato markaasi wixii chemicalskii iyo agabkii oo dhammaan la tusi karo sayniska physics chemistry biology xaan kalena lab kombiyuutarkii waa dhameystiran in maxaa maktabadii waa taala
environmentka dugsiguna waa dugsiga ugu environment wanaagsan waxa ay dhanba waxay ka qayb qaadanayaan inay tayadii waxbarashada kor u qaadaan waxaan dhammaan odhan lahaa bulshadana inay ka faa'iideystaan macallimiinta joogta iyo dugsiga waxa yaalaaba waxa loo keenay waa bulshadeenan reer Boorama waana dugsigii ugu horeeyay dhamaanta inteedan joogta Jibriil noqoto aniga noqoto iyo maamulahaba waa dugsigaanu ka soo wada baxnay waana dugsi taariikhiya marka dhinaca kale laga eego halka xudunta oo ah qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu dhisay marka waxaan odhan lahaa insha Allah anoo hadalka soo koobaya maamule waxaanu si toos ah uga wareegaynaa hay'adda Save the Children kombiyuutaradan oo baahi badan u qabnay insha Allah waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwa anfaca ubadkeena iyo ardayda wax ku dhiganaysa jiilkan iyo jiilka ka dambeeya insha Allah